السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel ka soo aad naga daawanaysaa ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waa galabnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 30 bisha September sanadka 2025 qodobada barnaamijka galabta aan idinku hayo waxa ka mid noqon doona Trump oo waqti u qabtay Hamas inay kaga soo jawaabaan hindisaha nabadda ee uu soo jeediyay qabar oo maanta sheegtay inay ku wareejisay Hamas hindisihii madaxweyne Trump waliba fikirkeeda ay raacisay markii ugu horeysay ayaa la sheegayaa Masar iyo Qatar iyo Turkiga inay la hadlayaan Hamas si markaa iyaduna ay u aqbasho hindisaha dawladaha caalamka oo dhan ayaa soo dhaweynaya hindisaha Donald Trump haddaba wararkii ugu dambeeyay hindisaas halka ay hawshiisu marayso iyo Netanyahu oo markaa la sheegay in caqabadihii ugu xumaa uu la kulmayo iyadoo markiiba ay hadleen Smotrich iyo Ben Gvir haddaba wararkaas waan idin hayaa waxa soo kale aan idinku soo gudbin doonaa barnaamijka muwaadin Falastiiniya ayaa la sheegay inuu gaari dul mariyay waliba rasaas uu ugu daray dad Yahuud ah iyadoo la sheegay markii dambe isagana in markaa weerar lagu qaaday tolo xaaladiisu waa sidee daanta galbeed ayayna arrintaas ka dhacday qaybaha dambana waxaan idinku soo gudbin doonaa haddii aan la idmo 169 Yahuud ayaa maanta mar kale waxay xoog ku galeen masjidka barakaysan ee Al-Aqsa haddaba wararkaas iyo warbixinada kale iyo wixii kale oo soo kordha inta aan ku jirno barnaamijka galabnimo ayaanu idiin soo gudbin doonaa kulanti wanaagsan asxaabay meel ka soo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waa galabnimo talaada ah barnaamijkuna waa kii labaad maanta talaada aan idiin soo gudbinayo iyadoo aan filayo inaad si weyn uga bogateen macluumaadkii iyo wararkii aynu ku soo gudbinay barnaamijkeena subaxnimo haddaba galabta maxaa cusub waxa aad loo hadalhayaa adduunka oo dhan dawladihii caalamka oo dhan kuwii carabta kuwii islaamka kuwii reer galbeedka kulli warbaahinta dhan hindisaha Trump hindisahaas ayay caalamka inta badan soo dhaweynayaan oo waxay leeyihiin waa midka ugu macquulsan ee lagu soo afjari karo dagaalka Gaza laguna dhisayo dawlad Falastiin ay yeelato waa haddii dhinacyadu siday tahay ay u aqbalaan haddaba waxaan idin tusinayaa wararkii ugu dambeeyay Qatar ayaa si rasmi ah u shaacisay maanta inay ku wareejisay oo ay ku salintay hindisaha Mareykanka inay Hamas u dhiibtay haddaba waxaa la sheegay inay socdaan wada hadallo aad u culus oo arrinka ku saabsan haddaba wararku waxay sheegayaan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid Al-Ansari inuu sheegay in Qatar iyo Masar ay xarakada muqaawamada islaamiga Hamas ku wareejiyeen oo ay u gudbiyeen hindisaha Donald Trump kaasoo markaa la doonayo inay ka doodaan oo ay markaa jawaab ka bixiyaan Al-Ansari oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Doha ayaa wuxuu sheegay in ay markaa dawladaha dhexdhexaadka ah ay markaasi si rasmi ah uga shaqayn doonaan sidii hindisaha uu u socon lahaa waxaana la sheegay in markii ugu horeysay Turkiga uu qayb ka yahay dawladahan la hadlaya Hamas oo markaa ka dhaadhicinaya sidii qorshahan uu u hirgeli lahaa marka Qatar iyo Masar iyo Turki ayaa hadda soo galay la leeyahay Turkiga isaguna wada hadalladaas ku jira waxa soo kale Qatar ay sheegtay fikirkeeda ku wajahan siday u aragto hindisaha waxay sheegtay inuu iyadu la fiican yahay dawladihii islaamka ee kuwii carabta madaxdoodii la fariistay Trumpna ay hindisaha ku qaracsan yihiin Sacuudiga Imaaraadka iyo Masar iyo Turki iyo kulli ay soo dhaweynayaan waxayna u arkaan tallaabo wanaagsan oo lagu joojinayo xasuuqa lagu hayo dadka reer Gaza waxaana la sheegay inay arrinkan bilow u noqon doono fiican wada hadal buuxa oo ka dhasha mandiqada dawlad Falastiin ay yeelato iyadoo la ogyahay Israa'iil inaanay marnaba ogolayn in ay markaa samayso wax ku saabsan ama inay aqbasho dawlad Falastiin inay yeelato
haddaba dhanka kale telefishinka alcarabiya ayaa wuxuu leeyahay trump wuxuu u qabtay xamaas 4 maalmood inay kaga soo jawaabto qorshaha gaza ee la doonayo in lagu nabadeeyo wuxuu leeyahay waa in ay ka soo jawaabaan waaye marka arinta kale muhiimka waxay tahay laba nin oo muhalligiina jira oo ah Smotrich iyo Nikolai bin Gavir labadoodu warar kala duwan ay ka soo saareen hindisaan haddaba haddaan idin tuso Smotrich wuxuu leeyahay waxaa la sheegay Smotrich inuu weerar ku qaaday qorshaha Trump ee ku saabsan Gaza wuxuuna sheegay inuu yahay fashil diblomaasiyadeed haddii qorshahaasu ay Israa'iil dhaqan geliso leeyahay dhanka kalena Nikolai bin Gavir ayaa isaguna wuxuu ku baaqay xubnaha xisbigiisa inay degdeg isugu yimaadaan oo markaa ay ka tashadaan hindisaha Trump hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa sheegaysa wasiirka amniga Itamar bin Gavir inuu ku baaqay xubnaha xisbigiisu inay degdeg kulan isugu yimaadaan maanta oo talaadaha inay kulan markaa ay yeelanayaan waxayna ka harisanayaan hindisahan oo ay u arkaan inuu yahay khatar aan la aqbali karin way marka Israa'iil hindisahan waxyaabaha ay ku diidan tahay maxay tahay Israa'iil waxay diidan tahay oo lagu qasbayaa iyadana dawlad Falastiiniya inay markaa meesha ka bilaabato Israa'iil marka iyagu ma ogola wax Falastiiniyiin leeyahay inay aaga ka soo dhawaadaan dawlad Falastiin inay aqbalaan waxyaabaha nimanka kale ay u qaylinayaan oo xataa Netanyahu laftirkiisa laga baqayo marka uu dib ugu laabto Israa'iil inuu markaa arikaa uu madax adeeg ka keeno ayay arikaas u saareen marka Hamas waxa marka culays saaraya Turkiga Masar iyo Qatar waxay leeyihiin idinku aqbala hubka inaad dhigtaan maamul dadkiina loo sameeyo dawlad inay yeelato Falastiin marka maxaabiista dhiiba inta 20 ka haystaan 250 maxbuus oo xabsi daa'im ku xukuman oo rag waaweyn oo culus ah la sii deynaya 1700 la sii deynaya meeshan nabad ayaa la geynayaa oo maaragtay ciidana tagi doona arbeed waa Mareykanka iyo waxa kana laga shaqeeyo dib u dhis lagu sameyn doona waa la idin dhisi doona guryihiina adikoo dawlad yeesheen taasay marka abisay marka Israa'iiliyiintu warkaasi diideen Israa'iiliyiintu waxay doonayeen dadkan inay cagta mariyaan laayaan dhulka ka qaataan marka wixii way isbedeleen wixii marka qolo walba marka halkaas marka culayska uu ka yimid leeyahay marka waa arki doonaa kulay Hamas jawaabta ay ka bixiso ninka la leeyahay Netanyahu laftirkiisa hadda marka uu tago wuxuu la kulmi doonaa golihiisa wasiirada go'aamada ay qaataan iyaguna waa la arki doonaa marka xaalku marka hadda halkaas uu maraya wixii warar soo kordhay dawladihii caalamka oo dhanna way soo dhaweynayaan hadday tahay Ruushka Shiinaha Jarmalka Ingiriiska Australia Faransiiska dawladaha adduunka oo dhan waxay leeyihiin waxaan u aragnaa tallaabo wanaagsan inay tahay qodobka isaguna halkaas ka gudbaynaa qodobka labaad waxa maalmahan iska soo daba noqonaya daanta galbeed nin Falastiini inuu gaari soo qaato ayuu dadkii jeersiinaya isaguna markii dambe waa la tooganaya arada ay dadku qabaan xanaaqa ay qabaan wax kale ma tari karaan yahuudi ay arkaan gaariga ku dhufanayaan haddaba marka aradito soo wararkii ugu dambeeyay sheekadaas 3 Israa'iiliyiin ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen kadib markii gaari uu dardarsiiyay oo gaari la dul mariyay waxaana la sheegay in rasaas halka ay ka dhacday koonfurta magaalada Qudus haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay 3 Israa'iiliyiin ayaa maanta talaada waxa la dul mariyay gaari meel ku dhow goob checkpoint ah oo god ah oo magaalada Qudus iyo Beit Laham isku xiraysa waxaana la sheegay qofkii weerarka fuliyay inuu shahiiday oo uu dhintay kadib markii rasaas ciidanka Israa'iiliyiinta ay ku fureen haddaba warbaahintu waxay sheegayaan in booliisku ay halka degdeg u tageen isla markaana ay xireen wadadii iyo goobtii shilku uu ka dhacay dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa xaqiijiyay inuu shahiiday nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabay Mahdi Deriya oo markaa ka soo jeeda deegaanka la yiraahdo Beit Fajar oo ku yaala koonfurta Beit Laham حركة مقاومة إسلامية حماس بيان رسمي غوردو سو ساري waxay ku tilmaantay
howlgalkaas inuu ahaa mid halyeynimo ah oo geesinimo ah oo dadka falastiiniyiinta ah ay sameeyeen way marka iyaduna hawsha halkaasay maraysaa dhanka kale wararka cusub waxaa ka mid ah masjidka barakaysan ee al-aqsa ayaa maanta mar kale yahuudi ay xoog ku galeen haddaba telefishinka al-jazeera ayaa wuxuu leeyahay 169 yahuuda ayaa xoog ku galay masjidka al-aqsa sida ay helayso al-jazeera waana yahuud xag jir ah dadka xoogga ku galay masjidka al-aqsa subaxnimadii saakay ayayna xoog ku galeen iyagoo halkaasi ku sameynayay waxyaabo diinta islaamku aanay raalli ka ahayn oo masaajidka dhexdiisa ay markaa ku sameynayeen haddaba xaalku halkaasuu marayaa qadar xaysiisa kadib warar cusub ayaan idin hayaa oo ku saabsan doomihii kusii jeeday Gaza oo war cusub hadda aan arkayo inuu ka soo kordhay kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii galabnimo waa galabnimo talaada barnaamijkuna waa kii labaad waxaynu maraynaa qaybihiisii ugu dambeeyay haddaba qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa doomihii kusii jeeday Gaza ayaa kusii dhawaanaya wax ka yar 350 mayl ayay sheegeen inay hadda Gaza u jiraan Israa'iilna ciidamadeeda badda iyo commandooskeeda waa heegana lagu leeyahay inay ka hortagaan doomahaas inta aysan Gaza tagin maraakiibtii dagaalka Israa'iil iyo ciidamadooda commandooska helicopteradooda weerari lahaa doomaha waa diyaar haddaba wariyaha al-jazeera ee doomaha la socda qaarkood ayaa soo sheegay in xaaladdu ay hadda u muuqato in la isfarasaarayo saacadaha soo socda wuxuuna yiri weli markabkii talyaaniga ahaa iyo kii isbaanishka ah nagama harin oo weli biyaha maynaan gelin Falastiin marka way nala socdaan maraakiibtii marka xaalkeenu ilaa hadda waa fiican yahay marka waxa arki doonaa maalmaha soo socda meesha wixii ka dhaca